ilaahay wixii aan weydiistay ee aan gacmaha kor u taagay bar oo bar waa hayaa alayka raxmatullaahi wa barakaatu maalintii afraad ayaa ii socota ee aan halkan ku soomaya ama ku citikaafayo kaymahan cidlada waxaan u soo guuray 28kii bishan haddii ilaahay idmana waxaan sii joogi doonaa ilaa 5 bisha lixaad oo ay igu ekaan doonto 10kii casho ee aan rabay inaan halkan ku soomo sababaha ugu waaweyn kaymahan cidlada ugu soo guurno waxa weeyaan inaan ku soomo 10ka habeen ee ilaahay ku dhaartay ee sanadka ugu fadliga badan ugu ajarka iyo xasanaadka badan waa meesha cidlada ilaahay waa igu badbaadiyay bila ilaahay igu muutusin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ku degay waan ku cibaadaystay waa ku farxay anigoo dhan baa jawi ahaan isku bedelay aniga ilaahay un baa joognaa nafle ashahaataan ilaahay ahayna ma joogo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay horta waa igu badbaadiyay isbedel weyn waa ka arkay 4tii cashe aan meeshan ku sugnaa anigoo dhan baa isbedelay caafimaad ahaan baan isku bedelay caqli ahaan baan isku bedelay dhar ahaan baan isku bedelay jimsi ahaan baan isku bedelay fikir ahaan baan isku bedelay diin ahaan baan isku bedelay anigoo dhan baa isbedelay haddii aan sii joogo 6 habeen ee hadhayna anigoo qof kale abaanba soo baxayaaba iglantaa taqaaneen iyo qofka taqaaneen toona ma bihiye anoo qof kale aan idin iman doonaa halkan waxaan rabaa inaan quraanka ku xafido haddii ilaahay yiraahdo intaas oo 6 casho ii dhiman saacadaha halkan ku soomaya aad bay u dheer yihiin waa dhowr iyo 20 saacadood mana aan direen alxamdulilaahi rabbil caalamiin anoo dhan baa ku degay fikirkii baan ka raystay stresskii baa iga baay hirigtii iyo masiibadii iyo istabayaacii iyo hayo iyo xagee joogtaan wixii oo dhan baa iga hadheen waaba ilaabayba maaliga halayga kawaar iglanay maaliga halayga kawaardi halayga maaliga halayga kawaardi la joogiyo hadba waaga la joogiyo hayo lagu waayaa kaya walaala yana kaabay qorxdan iyo muqay wareegga walaala shaqeeyaan gaara kawaardi iglanay maaliga halayga kawaardi halayga kawaardi iglanay maaliga halayga kawaardi Allah maanta reer laas caanood laygu keerar asxaabta horta magaalada laas caanood ayaan joognaa maanta waxaan maskaxdayda ku soo dhacayn oo maankayga ku soo dhacayn waxaad fanaaniintii reer jigjiga ayaad sarkiisa nafta ismaan lahayn waa kowde dabeetana waan arkay dabeetana markaan arkayna reer laas caanood markaad heesta uu budlu qaaday laas caanood markuu ugu celceliyay horta reer laas caanood waad fahantay si fiican marra waaxid halka lagu dhufto warniyad waalan tahay horta reer laas caanood maanta waad fahanto aadanka baranaya haddaan diinta baranayo sheekhdii waa naafil haya sheekh Umariyo maxaad baranaysaa markaa axmed aadanka sida loola dhaqmayo sida maaragtay xaaladahooda khaaska ah loo fahmay khaasatan xagga dumarkana waxaan ku qalliinka horta reer laas caanood ma taqaanaa hadda dhowr hablood baa dhakhtar la soo dhigay waxaad ugu celcelisay laas caanood ay doole laas caanood macnaha dool laas caanood bay ka dhalatay way macnaheedu moogtahay kadibna waad isugu celcelisay kadibna markaa laba kalmood tiraahdo laas caanood baad ugu celcelisay aniga waxaan la yaabay gabadhan alxamdulillah waxay ahayd gabar wadankeeda caanka awalkeedii hore maasha Allah kala kacsan ilmaha yaryarka ugu yaryar ilaa waayeelka ixtiraam respect loo hayo wadankeeda يعني حق صار له قاعدة ما شاء الله عد كستجعل إقلشوا هرت ودنك هذا وحقتها بيمكو شيء قاعد ساسي تاعدنا إقلشوا مركز تكتي إقلن يعني قف ليلو ميهن لكن سدي أول كهور ميهن هذا I don't know رمي أسبوعات تيسي أما ذاتك وحي الشيء يعني رونو قودان ويا حنون ستي بوبو ما حنون ستي الله أعلم قفك هنا لحظة لا صوتف هذا الكوحن يعني حدا وحتى مركي هلا يسوديس أنا أنت أكو اعتكافة أنت إلهي كبرياء
horta ilaahay haddaa baryaysid inaa adiga ogeysiis ana inta ilaahay ku tuuga inaad cid dhahdid maaha taa waa inaa private ku ahaato adiga ilaahay niiga dhexaysaa ilaahay haddaa baryaysid inaad dadka ogeysiisid maaha mafahmaysaa midi kale hadda ma ogaatay inaa bila'aadinka saxma miran inuu yahay humanka dhexgalka bila'aadinka badan goormaa dhihi jiray dhexgalka badan hala joojiyo dhexgalka bila'aadinka dhexgalkiisa badan bulshada tirada badane oo wax lagu xanuunsado ayada hadda waxay dhahaysaa intaa jooga 6 maalmood oo nafisaa helayoga nafis mar hore heli leed haddii aad dhexgalka badan joojin leed haddana saas sii tahay bulshadii aan ka baqaa mar dab markii la no adiga kugu xiran tahay haddaa dhahda dadka stop way kaa stop garaysmayaan laakiin gabartan fiidiyoyaasheedii horeeta iyo hadda waxaa u dhexaysa farqi inaba caadayn xataa hadalka xataa yacni hadalkeeda hadal ma aha oo hadal oo yacni hadal miisaamin ma aha hadalkeeda waxaa ku jiro qarqar mafahmaysaa gabar hadalkeeda miisaamin gabar iska hadal u hadlayn gabar maasha allah ahayd laakiin adduunka waxaaba ahaanaynin sidooda mar kastaba ahaanaynin